dowladda Mareykanka xildhibaanadeedii sanadka ahaa iyo wasiiradii wasiirka arrimaha dibadda horeeyay iyo madaxweynihii iyo shacabkii u bareereen inay Soomaaliya kaalinta koobaad dowladda koobaad ee aqoonsi buuxda siisa xiriirkii wanaagsan soo celisa haday Soomaaliya ay dhexdeeda isdhaqday isxallisay xanibaadii diblomaasiyadda hota jiirta dowladda u barartay ee Mareykanka ha ahaato madaxweyne Obama oo Afrikaan loo tirinayo ee Afrikaanimo ku raacday iyo dowladda Mareykanka oo runtii dowladaha u horka albaabkaas diri waxaan leenahay Soomaaliya way garataa tilaabta ay qaadeen Obama iyo dowladdiisu tilaabta ay qaadeen Soomaaliya way garataa waan ka maceelisaa shacabka Soomaaliyeed ma ilaabayo taariikhooda ku qoraya aan la ilaabi karin in xilligan adag cid u soo gurmata ee albaabka u furta ay dadka dhan uga sokayso marka hadda biriga Soomaaliya waxa u sokeeyay dowladda Mareykanka ayaa dowladda uga sokayso ma saasoo gudbaan amsana Mareykanka ogaada saasoo ognaay taas inaad ogaatay in aan ogna ila ogaada wax Soomaaliya waxa uu taraaway taas aan rabaa ogaado dadka labaad anaga waxaan naga rabaa inaan taageerno waxaan taageeraynaa qaranimada Soomaaliya haybada Soomaaliyeed ee diblomaasiyadda ee soo noqotay yaa kale Madaxweyne Xasan Sheekh asiga ku guuleystay inuu aqalka cadax fadhiisto kuwa guuleystay inuu tilaabtaas qaado saadaradeeda waxaa leenahay Madaxweyne Xasan Sheekh waa mahadsan